markab sida mucaawano dhan 5,000 oo tan oo isugu jirta sonkor iyo bariis kana timid wadanka Turkiga looguna talagalay dalkan Jamhuuriyadda Somaliland ayaa deeqdaasi qaybinteeda waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi maareeyaha dekedda Berbera agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta agaasimaha xafiiska mucaawanooyinka ee wasaaradda dib u dejinta iyo xubno kale waxaana qaybtii ugu horeysay loo raray gobolka Togdheer oo loo raray raashin dhan 700 oo tan waxaana la wareegay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer munaasabaddan ayaa waxaa hadal ka jeediyay gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi waxaana u mahadnaqay wadanka Turkiga ee raashinkaasi inoogu deeqay oo u soo jeediyay isagoo u soo jeediyay dadka raashinkaasi qaybintooda loo xil saarayna inay gaarsiiyaan dadka u baahan raashinkani ee loogu talagalay agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta Cali B kale ayaa isaguna soo dhaweeyay deeqdan ka timi wadanka Turkiga maareeyaha guud ee dekedda Berbera Engineer Cali Cumar Maxamed Cali Xorxor ayaa isna si weyn u soo dhaweeyay deeqdani wadanka Turkiga waxaana xusay inay deked ahaan hawshii kaga aadinayd ee dejinta ay door weyn ka qaateen isla markaana howlwadeenadu ay hawshaasi qabteen deeqdan ayaa noqonaysa tii u horeysay ee dawladda Turkigu si toos ah ugu deeqdo dalkan Jamhuuriyadda Somaliland عبد الكريم سعيد صالح هون كيبل تي في بربرة